bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta waadan salaam meel kastoo dunida dacladeda ka joogtaan. waa Cayuush Cabdiqaadir youtube channelka aad daawanaysid Cayuush Cooking and Beauty. waxaan rajeynayaa inay iyo caafimaad qabtaan anna sidoo kale. maanta waxaa inoo wadaa xalab buskood bishaciiriyo sidaan u sameeyey waxyaalaha ka sameeyey inta waa ila arki doonteen hadduu ilaa idmo sidaan quruxda badan ee kusoo baxday. marka hore waxaa idin leeyahay soo dhawaada gacmo furan qalbi furan. channelkiina waaye ashiyaaga aan ka sameeyey intay igu diyaarsan yihiin mid mid aad ku kala sheegi doonaa hadduu ilaa idmo. waxaa ugu horeeya zubdo ama batar ama subag qofba si u taqaano, buskut shaay, karameel, jumna keeri, webin kareem, qishto iyo xaliib nastela iyo shaciiriyo. shukulaato alaal shukulaatada jeceshaha kor kaga qurxin kartaa, yani midaan hadda haysta iyadoo karameel jirto iyadoo faroola jiro, mid alaal midkaa jeceshaha. hadda saa u jeedin shaciiriyadan soo jabiye intaa u baahnaa. jab subaga maxay hadda dhalaalinaya, buniyaan kasoo dhigaya, kadib insha Allah waa ila arki doontiin. sameyskeeda waxaas u dhib badan maahan, 10 daqiiqo kaliya kugu qaadane iyo inta yar oo talaajada ay kugu jirto. haddaa u baahan tahay 4 saacadood ama 3 saacadood talaajada hoos ku heenee aysan ahayn fareesirka koraan nus saac geline, kadib diyaar ay ku tahaybo. maasha Allah. hadda saa u jeedinbo shaciiriyada buni kasoo dhigaa saa horada kugu sheegay, kadib insha Allah kusoo laabanayna. markii la saaray in la kor taagnaado waaye ilaa iyo bunni uu ka noqonayo waayo, haddii kale hoos uu ka gubnaya tacamkiisana wuxuu noqonayaa qaraar. loon isku eg oo qurux badanna ma kusoo baxaayo. loonka bunniga inuu ku noqdo daarabtid waa inaa kor taagnaatid oo maanta dhan walaaqa ku haysid si uu kugu qurux badnaado. intaan ka badan dibka lagu meyn karo waayo way gubanaya. hadda waxay kusoo baxda bunni qurux badan oo kaaliska arage. saxankaa kusoo diyaarsanaa. waa soo diyaarsaday. hadda waxaan karsanayaa karameelkii oo 1 xabo karameel iyo 1 bakeeri biyo aan isku soo karkarinaa. wax kale ma ku daraayay insha Allah. hadda diyaar uu yahay, waa ka dejinayaa. waxaan ku darsanaa shaciiriyadii saxankii igu diyaarsaneed. 1 xab makareeba kulliga ku wada darayaa. waa 1 bakeeri oo biyo iyo 1 xabo karameel
saa u jeediin ba hadeertaan buskudka kor ka saaray. hadda waxaan diyaarsanayaa qaldada kale. xaliib nastella nusaa ka isticmaale iyo jubna keeri oo asna 3 xabo ah. hal xabo wibin kareem ama dream wipe qofka suu yaqaano, iyo hal culbo qashte ah. intaas kaliya isku shiiday. saa u jeediinbo wax kale aan ku dara ma lahan. waa caanihii macaana jubna keeri oo 3 xabo ah, caanaha nus, hal xabo dream wipe iyo hal culbo qashte ah. xoogaa yara korka ka daadina. haddana dabaqa kale oo buskud aan saaraa. dabaqadan wax badan kuma shubin waayo karameelkii aan hoos ka buuxo. haddana kor hadhooti waxaa kaga sii shubayaa inta kale soo hartay. saas darteeda marka buskudkan iyo buskudkan sida labada xabo yani kaasna qoyaan hoos ka helaa, kana qoyaan kor ka helaa. wax qaleel uu kusoo baxay habeeraatee malahan. maasha Allah tabaarakallah ku dhax lagama sheekeyn karo xaladan. saa u jeedin waxba kama reebin, kulli korka uga shabay. marka waxaan sameynayaa talaajada gelinayaa 3 saacadood. hadda waa kasoo bixiyay maasha Allah tabaarakallah 3 saac iigu jirtay. saa u jeedin quruxdan ay kusoo baxday way dhigtay maasha Allah tabaarakallah. wax oo maxay ahayd adeegna ma ahan, kaaliska aragan ku dhax gelasina maasha Allah tabaarakallah. wuu jeclaysan doonaa saraxatan waa ka helay. soo tijaabiyay idinka fiiriya, waa keeli doontiin hadduu ilaa idmo. sidaan quruxda badan ay kusoo baxday. soos alaal sooska haystaa kor kaga shuban kartaa. ana hadda midkaan ku shubanayaa shukulaatada maasha Allah. dhadhankeedana ma laga sheekeyn karo. sameyskeedana waqti badan kuma qaadanayso, waa wax iska 10 daqiiqo ah. sidaan quruxda badan ay kusoo baxday maasha Allah. insha Allah idinkan waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontaan. waa u jeedin jilicsi u tahay maasha Allah tabaarakallah. marka waxaan leeyahay asxaabe soo dhawaada. waa walaashiin Ayuush Cabdiqaadir oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.